kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dilaagii weynaa oo kaliya ka adkaa dumarka waayeelada ah ku soo biir kanaalkan si aad ugu xirnaato taxanayaasha iyo dhacdooyinka cajiibka ah ninkan waxa lagu magacaabaa Billy waxa uu qorsheynayaa inuu dilo haween waayeelo ah oo fara badan Billy ma aha nin degan waana mid hadba meel ka shaqeeyo mar wuxuu ka shaqeeyaa xanaanada dadka waayeelada ah halka mar kalena uu yahay farsamayaqaan guriga ah balse maalmaha ka mid ah waa uu istreesay waxa uu qorsheystay inuu shaqo kale raadsado si kalena uu lacag ku helo Billy waa mid aqoon u leh isla markaasna asxaab ku leh xanaanada dadka waayeelada ah sababtoo ah halkaas ayuu ka shaqeey jiray sidoo kale wuxuu ahaa nin farsamayaqaan ah oo guryaha habeeyo Billy wuxuu ogsoon yahay in dadka waayeelada ah ay haystaan dahab iyo shay'ad kale oo qiimo leh waxa uu dhexda u xirtay sidoo ka heli lahaa dahabkaas asagoo qorshayaal waaweyn dajiyay hadday xitaa ku qaadanayso inuu dad qaarijiyo shaah uu degsaday ayaa ah inuu u soo dhunto dadka waayeelada ah oo u badan haween albaabka ayuu u soo gargaraacayaa haweenka asagoo ka codsanaya inuu shaqo guri uu qabto markay u ogolaadaanna waa uu ka awood badinayaa asagoo dhulka ku dhufanayo isla markaasna uu adeegsanayo birkin si uu nafta uga qaado waa mid baxsanaya dahabkii isla markaasna sariirteeda ku celinayo si looga dhigo qof iskiisa u geeriyooday waana qorshe cajiib ah maalintii xigtay Billy waxa uu soo baxay hirgelinta qorshihiisa isagoo albaabka u gargaraacay haweeney uu ku tuhmayay inay dahab haysato maadaama asaga horay uu soo shaqeyn jiray qaybta xanaanada dadka waayeelada ah naagtan oo ah 86 jir ayaa durbadiiba ka furtay albaabka waa uuna u xog sheegtay birkinna ayuu nafta kaga qaaday markii uu nafta ka qaaday waxa uu qaatay dahabkii iyo wuxuu qaadan karay waxa uu ku iibiyay dukaanka dahablaha ah bishii xigtay wuxuu dhacdo sidaan la mid ah ugu sameeyay naag 91 sano jir ah balse booliska ayaa qabteen asagoo ku eedeeyeen inuu meel qaldan mareeyay balse booliska kamaysan warqabin inuu dad soo khaarijiyay bil kadibna waa ay soo fasaxeen Billy kama uusan waartoobin ficiladiisa guracan waxa uu meeshii ka bilaabay khaarijinta dadka waayeelada muddo 2 bilood gudaheeda Billy waxa uu khaarijiyay 5 haween oo waayeelo ah isagoo dahabkana ku iibinaya dukaanka dahablaha ah asbuuci xigay Billy waxa uu khaarijiyay haween waayeel ah oo 90 jir ah isla farsamadii uu ku caanbaxay asbuuci xigay wuxuu khaarijiyay naag 79 jir ah balse dhacdada cajiibka ayaa ah inaysan jirin qof soo dacway booliska maadaama dadka dhan ay u haysteen in dadkan waayeelo ah ay u geeriyoodeen da'dooda oo weynaatay awgeed sidoo kalena qofka birkinta lagu khaarijiyo waxa ay u qaab egtahay marka la baaro sidii qof u dhintay oo kale wadna xanuun balse nasiixmo qof da'daas ah markii la khaarijiyo qof u maleynaysa malahan in uu ahaa dil qorsheysan waxayna dadka dhan u haystaan inuu qofkaasi si iska ah u geeriyooday taasi oo ka caawisay in Billy uu sii wato qorshayaashiisa guracan asagoo sii waday dilkii uu ku hayo dumarka waayeelada ah 2 asbuuc kadib asagoo ka soo dhamaaday qorshaha khaarijinta naag waayeel ah waxa aragtay naag oo meesha ka shaqeynaysay waxayna weydiisay sababta uu meesha u joogo balse waxa uu sheegay inuu yahay nin oo ka shaqeeyo farsamaynta guriga wax shaki kamaysan qaadin waa ayna iska fasaxday Billyna saas ayuu qorshiisa ugu hirgalay balse Billy oo ah nin maskax badan ayaa dareemay in dadkii ka shakiyeen waxa uu go'aansaday muddo sanad ah inuu joojiyo dilka ku haya haweenka sanad uu ka maqnaa shaqadaani foosha xun Billy waxa uu dib ugu soo laabtay isagoo bilaabay inuu dumarkii qaarijiyo isagoo dilay naag 91 sano jir ah 2 asbuuc kadib waxa uu sidoo kale dilay naag 85 sano jir ah 6 asbuuc kadib Billy waxa uu albaabka ku garaacay naagtan lagu magacaabo Grace isagoo iska dhigayo nin guryaha ka shaqeeyo oo farsamayaqaan ah waxa uu ka codsaday inuu shaqo guriga u qabto balse habartan Grace ah ayaa u diiday maadaama aysan jirin wax shaqo loo qabanayo guriga dhexdiisa ayadoo albaabka xir isleh ayuu albaabka xoog ku jabiyay waxa uu birkin nafta ka qaaday wixii dahab yaalana waa uu qaatay goobtii dilkana waa uu iskaga baxsaday balse dhacdada cajiibka ayaa ahayd in naagtii Grace ah aysan geeriyoon taa beddelkeedana ay suuxday taasi oo keentay inuu u maleeyo inay naagtii geeriyootay saacado badan kadib naagtii Grace ahayd waxay ka soo kacday suuxintii iyadoo gacanta ku qaabsatay kaarkeedii digniinta degdega ahayd waxayna wacday booliska iyagoo ismarkaasna u soo diray ambulance markii koomadii la soo badbaadiyay booliska waa ay wareysteen balse nasiib xumo way garan weysay si uu u qaabka wajiga Billy taasi oo keentay in Billy uu mar kale ka badbaado gacanta cadaaladda balse nasiib wanaag asbuucyada soo socda waxa sareyn doona cadaaladda Billyna xaqiisa ayaa la marin doonaa suuqyada xiga Billy waxa dhibano u noqday dumar badan oo waayeel ah isagoo khaarijiyay in ka badan 4 dumar muddo 2 asbuuc gudaheed ah
wax caddayn ah ma uusan reebin waxayna dadkii dhan u haysteen in habrahan ay da' ahaan u geeriyoodeen. lacaga fara badan ayuu ka sameeyey dahabka uu dumarkan ka dhaco, balse maalin maalmaha ka mid ah waxa uu u dhacay naagtan lagu magacaabo Mary oo da' ahaan jirto 91 sano jir. Mary markii albaabka ka furtay waxa uu si qasab ah ku soo galay iridda, waxa uuna birkinta madax ka saaray isagoo naqso ku celinayo. balse nasiib wanaag Mary ma aysan geeriyoodin, taas cagsigeedana waa ay suuxday, taasi oo Billy u maleeyay inay geeriyootay. qasnatii dahabka ku jireen ayuu qaatay waa uuna la baxsaday, balse dhowr saacadood kadib Mary saaxiibteed ayaa u timaaday, isla markaasna booliska ay u wacday ambalaasna loo soo diray. dhakhaatiirtii ayaa u yimaadeen waxayna ku guuleysteen inay dib u soo nooleeyaan habartii Mary ahayd. markii ay booliska wareysteen Mary waxay ku guuleysatay inay soo xasuusato sidii u ekaa Billy. booliskana waxay sawir ka qaateen hadalladeeda iyo tilmaamihii ay sheegaysay. booliskana waxay ku guuleysteen inay ku tuhmaan sawirkaasi inuu yahay Billy, balse nasiib xumo wax caddeyn ah uma hayaan. 2 maalin kadib Billy waxa uu go'aansaday inuu raadsado dhibanihiisa xiga, balse waxay noqotay naagtan lagu magacaabo Lucy oo asal ahaan ka soo jeedo waddanka China. waxayna ku wada kulmeen supermarketka. Billyna way wada hadleen wuxuu iskaga dhigay nin wanaagsan, iyadana wax shaki kama aysan qaadin, balse markaas ayay ku dambeysay in qof uu arko iyadoo nool. waxaana la isku raacay inuu gurigeeda u raacay, isagoo sidoo kalena khaarijiyey wixii dahab iyo guri ee lahaydna ka qaatay. balse isla maalintiiba maadaama Billy uu yahay nin la tuhmayo, booliskana waa kuwa raadraac ku hayo Billy, waxayna arkeen isagoo gurigiisa soo galayo isagoo ka imaaday dhankaas iyo khaarijinta naagtii. kadib markii uu dahab kala baxay waxa uu sanduuqi yaraa ku tuuray godka qashin qubka ah. booliskana waa kuwa daawanayeen ficilka uu sameynayay. durbadiiba booliska waa ay jeebadeeyeen, waa kanaana sawirkii la ka qaaday. godkii qashin qubka ah markay baareen booliska waxay arkeen magacii Lucy naagtii uu soo khaarijiyay oo ku qoran, waxayna ogaadeen inuu naagtaas ka dambeeyay dilkeeda. booliska marka ay gaareen gurigii naagtii Lucy ahaa waxay arkeen iyadoo meyd ah oo la khaarijiyay. booliska waxay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan dhowrkii bilood ee hore dadkii waayeelada ah ay geeriyoodeen, waxayna bilaabeen inay la xiriiriyaan dilkaasi Billy. dadkaasi uu Billy khaarijiyay waxaa loo haystay inay u geeriyoodeen da'dooda oo weynaatay awgood. ugu dambeyn Billy waxaa lagu soo oogay khaarijinta in ka badan 18 qof, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. balse dhowr sano kadib saaxiibadiisa oo xabsi kula jiray ayay ismaandhaafeen, taasi oo keentay in uu khaarijiyo. halkaas ayuuna ku geeriyooday ninkii Billy ahaa. haddaba dhacdadani waxay fariin iyo digniin u tahay carruurta waalidkooda dayacaan. fadlan fikirkaaga gaarka ah nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga.